السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال من البعض فها كجوتان الدنيا ده كون سودو هذا برنامج كان وعي. برنامج كوعي وبرنامج على لقد داود برنامج تأوق وروح ضبطان أنه كم مرتقى نضدك وركوضة أم هذا الكود ماشى دير وجارو. sidoo kalena magaalada Minneapolis dadka ku nool iyo nawaaxigeeda waxa ay ka daawan doonaan dhinaca localka Somali TV daawadayaal waxaynu maanta ku faraxsanahay in barnaamijkan uu marti inuu yahay Guddomiyaha degmada 6 ee magaalada Minneapolis oo ka kooban degmooyin badan kana mid ah dadka mas'uuliyiinta ee ugu sareeya maamulana magaalada Minneapolis iyo waliba wax qabadkeeda Abdi ku soo dhaw barnaamijkan ma santahay Maxamuud Abdi sida aad la socoto dad badan oo Soomaali ah iyo waliba magaaladan Minneapolis guud ahaanba wax badan ayaa iska bedelay kadib markii lagu doortay xilkan dadka Soomaalida waxa ay dareemeen inay wax qabsan karaan inay meeshay doonaan in magaalada laga maamulo geysan karaan qof waxaana dareemaysaa in badan oo dadka kamid ah in ay wax badan oo ku adkaa markii hore ay u fududaatay ayna dareemi karaan kartidooda wax qabadkooda iyo dadka ay yihiin iyo xuduudooda waliba haday waliba isku sii tashtaan waxaan jeclahay barnaamijkan inaan ku eegno arimo yar oo dhowr oo muhiim ah ugu horeyntii waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maxaa la taaban karaa oo ilaa iyo muddadii xilkan aad haysay aad qabatay horta ma santahay Maxamuud adigii bahda saxaafadda waan salaamaya horta intaan xilkan hinay oo hadda 3 sano hadda noo dhamaatay sanadna waa noo dhiman yahay waxyaalo badan oo la taaban karo waan qabanay ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadlay oo noo fursadaas noo hirgeliyay iyo dadaalkeena iyo shacabkeena oo nala shaqeeyay degmada 6 magaalada Minneapolis haday noqdaan Soomaali haday noqdaan Oromo haday noqdaan Bacdaan waxyaalo badan noo hirgalay dhinaca gurhaynta dhinaca jidadka iyo jirdinooyinka dhinaca maxay waxbarashada after school programyada dhinaca shaqaaleynta dhinaca maxay bulshada oo Soomaalida ganacsatada haday noqdaan maxay Oromada ganacsatadooda in dadkeena ay dareemaan magaaladan inay samartin ku ahayn ay magaaladoodii tahay marka waxyaalo badan baa noo hirgalay gartay Abdi marka waxa kamid ah waxyaalihii aad tirisay ee badnaa guryeynta maxaad ka qabatay horta sida la socotid housing ku ama gurhaynta ama guryaha waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo bini'aadanku u baahan yahay sida la socotidna shacabkeena waa shacab gaar ahaan East Africaanka Soomaalida iyo Oromada dad ugu badan kira bixiyaal dad u badan dad cusub oo immigrants oo ku nool low income ama section 8 degmadeenna waxay kamid tahay degmooyinka oo kira bixiyaasha ugu badan yihiin 80% dadka degan waa dad kira bixiyaal oo renters ah marka wax badan waa ka qabanay dhinaca affordable housing waxa la dhaho guryaha waxa jirto sida la socotay laba dabaq ku yaala xaafadda Seward gaar ahaan jidka la dhaho maxay Franklin Avenue 2910 iyo 2515 dhinaca Starbucks ka dambeeya guryaha waaweyn oo casas guryahaas waxa degan shacab aad u fara badan oo dadkeena ah waxaan gelinay sanadooyin la soo dhaafay $50 million waa $50 million oo guryahaas loogu talagalay in lagu dayactiro dadka degan la siiyay fursad 30 sano ay ku sii noolaan karaan marka waa investment badan dhinaca guryaha waan guryahaas gelinay waxa kale oo marka taantan ka dhaxgalo badan waxa dhacdo dadka degan marka investment lagu soo biyo isbedel kuwa kale soo dego marka ma kuwoodii hore deganaana waxaan ku xirnay lacagtaas investmentkaas $50 milyan inaan gelino inay guryuhu noqdaan affordable ama guryo dadkii deganaa oo low income ku deganaa si kasaba u deganaadaan inay sii joogaan 30 sano soo socoto marka dadka ugu badan meesha degan waa weyn waa waqtigooda inta ka hartay waa ku sii noolaanayaan maxay marka taasna investment weyn ahayd waana ugu talagalnay markaan aragnay guryaha conditionka ku jireen waxay wax loo dulqaadan kara ma ahayn dadaal dheer 5 bilood oo negotiation alxamdulillah waa noo hirgashay maantana dadka ku nool way u jeedaan dhismihiisa isku bedelay sida dayactirkii waa socdaa waa dhamaaraba laakiin aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin marka dhinaca guryaha Maxamuud waa markaan ka sii hadalno waxa jirto guryaha magaalada laga dhiso condos ka loo yaqaan waa guryo marka fiirisid hal qol ama qol iyo bar ama haday ugu badan yihiin laba qol ah ama studio u badan guryaha waxa loogu talagalay qof iska shaqeeyo waxa lagu kaftamaa in cadaan iyo aygiisa inay degaan laakiin anagu waxaan ku dadaalnay inaan magaalada u jihayno jiha kale oo ah in laga fakaro guryaha la dhisay inay noqdaan guryo waaweyn ama guryo la dhaho for large families ama guryo familiyada waaweyn oo ballaaran 3 qol 4 qol iyo bar oo loogu talagalay dadkeen way wala socotaa waxaan nahay qowmiyad aad ilmo badan
dhalo familiyadan hadda waa sii badnaanaya culays baa marka nasaaran magaalada inaa si waxaa dhici karta magaalada in la ka saaro haddii guryo ballaaran aan la samayn marka hadda sanadka la soo dhaafay waxaan ku darnay $1 milyan affordable housing oo loogu talagalay in guryo affordable waaweyn la sameeyo waana markii ugu horeysay waa program cusub ay Soomaalida magaalada sameysay saameyn ku yeelan doonto dadkeena waxaa kaloo jirto dhinaca markii la fiiriyo housingka waa ognahay dadka low income ku degan yihiin section 8 section 8 kana cabashooyin badan baa naga soo gaaro oo gabar baa ku soo wacayso rag baa ku soo wacay familiya ku soo wacay maamooyina ku soo wacay oo dhahayo voucher-kayga ama section 8ka waraaqda section 8ka ma la tagi kari magaalada oo guryuhu laanoorada ama dadka guryaha iska leh waxay dhahaan maba qaadanaynaba taasoo anagu aan u aragnay inay tahay wax discrimination ah oo hadda sharci waa soo wadnaa sanadkan soo socdo oo la rabo in lagu qasbo maxay ama laga codsado si sharciyan ah in voucheradaas ay qaataan laanoorada dhan magaalada guryaha cusub oo la dhisi doonane in magaaladu ay ku siiso lacag extra ah haddii guryahaas lagu daro unityo oo loogu talagalay section 8 marka waxaan rabnaa inaan ballaarino dadkan fursadaha inay degi karaan xaafaday rabaan magaalada inaan lagu koobin hal xaafadaha iskuulada fiican laftigooda inay u guuri karaan oo degi karaan laakiin waxa kaloo muhiimsan dhinaca guryeynta waxa weeye anagu waxaan rabnaa inaan ka baxno insha Allah inaan ka baxno inaan noqono kira bixiyaal oo noqono homeowners dad guryahooda leh waxaan ognahay qof markuu gurigiisa leeyahay waa qof dareensan inuu sharaf leeyahay ilmaha ku koro guryo aabiyaashooda hooyinku leeyihiin waa iskuulada uga fiican yihiin ilmaha ku koro guri aysan lahayn marka waxaan rabnaa dadkan inay ka baxaan kira bixiyaashan iyo guryahan iskor saaran oo ku noolnahay oo ay helaan fursado inay magaalada meelo fiican ka degaan guryo lagado guryahaas oo ku salaysan diintooda shareeca compliant ah oo la siiyo fursado guryaha xataa la dayactirayo in maartay fursad u aniga waxaan hor yimaado maanta weekend in dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa magaalada hor yimid oo rab in guriga dayactiro lacagtii haystay waan u sahalnay waan u dadaalnay inuu gurigaas helo xaafad fiican uu ka helay wuxuuna ku helay lacag jaban $50,000 inuu ku dayactiro gurigaas guri markii value-giisa fiirsan uu yahay marka waxyaalahaas oo kala jirto dabcan dadka Soomaalida waxyaabaha ay fiiriyaan waxa kamid ah guriga iyo meelaha guriga ma u dhowdahay meel istiraatiiji ah masaajid ma u dhowdahay dugsiga intay u jirtaa iskuulka intay u jirtaa waxyaalaha noocaas iyo xaafadu amnigeeda siduu yahay dadkeen waa dad aad u firfircoon waxay fiiriyaan waxa middle class-ka cadaanka uu fiiriyo waxay fiiriyaan xaafad fiican iskuul fiican ku yaalo amnigeeduna uu sugan yahay marka taasna anagu waxaan rabnaa inaan u sahalno hawshan oo dhan waxay tahay dadku inay shaqooyin fiican helaan laakiin guryo fiican helaan gurigana ay iibsan karaan taas ay ka baxaan kira bixidada ku jiro gartay Abdi haddaan dhinaca guryeynta ka gudubno sidoo kale ballanqaadkaagii waxaa kamid ah oo ku jiray dhinaca jidadka inaad wax ka qabanayso iyo waliba jardiinada qaybtaas maxaa isleedahay waa la taaban karaa wad ka qabatay intii aad xilkaysi waxaa xasuusataa waxaa ballanqaadyadeena markaan campaignki hore ku jirnay waxay kamid ahayd sida Riverside jidadkeeda waa ogyihiin maamooyinka iyo odayaasha iyo dadka waayeelka oo xaafadda Sidar degan in lagu kufi jiray xaafadda Sidar waanu markaan joogo ka shaqay jiray waxa jirtay Afrika oo egtahay agaga jidadkeeda Afrika oo ogyihiin odayaashu way ka baqi jireen markii winterka yimaado barafka ma la xaaqi jirin iska daa maanta barafka in la xaaqo oo hadda aad loo xaaqo waan ogahay waan aad ba cadaadis u saarnaa magaalada inay xaafadda si gaar ah uga shaqeeyaan waayo waan ognahay xaafadaha ugu dadka badan way density markii la fiiriyo laakiin jidadkii boholaha lahaa masaajidka waa taqaanaa quba active horteeda 6th Street meesha iska gooyaan 15ka sida uu ekeed waxa xasuusataa maxay ahayd foolxumada meelaha sidewalk dadku ku socdaan inta way yaraayeen waxaan gelinay ilaa $15 milyan jidka la dhaho 6th Street jidka 4th Street jidka 15th Street iyo jidka Cedar Avenue oo dhan ayaga dhan waa la dayactiray maantana jidadkii Afrika ma u ekay waa jidadka ugu fiican magaalada Minneapolis xaqid la'aantii ka dahay jirtay iyo cusbada in aan lagu shubi jirin iyo meelahaas ka waran ayaga waxa soo dhamaadeen hadda waxa weeye waa la ogyahay hadda waa maalin iyo habeen bay kala yihiin sida waagi hore ha jirin sadar yihiin magaasida anigu waa deganahay marka u lugayo tareenka maalin kasta waan arkaa isbedelka nalalkii isbedelay signkii isbedelay waxa isbedelay dadka xataa dareenkoodii dadkana waa taqaana waxa jira dad naafa ah oo baawur ku socdo waxa jira ciyaal yar marka dayactirkaas waa noo hirgalay waana dadaal aan galnay waana ballanqaadaan u sameynay dadkeena waayo anigu waa ku noolahay sida Riverside waa xaafadaydii marka waan ogahay dhibaatada dadka ay qabaan dhinaca jirdoonooyinka waxaa jirtay $250 milyan oo magaaladu maalgelisay 20 sano soo socoto maxay jirdoonooyinka magaalada oo dhan laakiin anagu waxaan ku saleynay dooda lacagtaas waxaan ku saleynay codkayga la helo
waxaa ku salayn in lacagtaasi fursadda la siiyo jirdoonooyinka u baahan dayactirka ugu badan kuwa u badan dadka ay isticmaalaan degan yihiinna dadka ugu badan oo maxay ahayd ajnabi ah maxaa la nimankan maxay ahayd madowga midabka madow leh waayo waxaan ognahay xaafadahaas waagi hore ma la geli jirin lacagta oo waxaa la geli jiray xaafadaha kale oo codadka xoogga leh laakiin anaka waxaa ka mid nahay xaafadaha ugu codka dheer magaalada haddana Soomaalidu iyo East Africaanka waa la yaqaanaa wanaka u joogna waa u doodnaa waa u dagaaltamnaa marka hadda malaayiin dollar baa la gelinayaa maxay jirdiinka ku taalo Curry Park oo xaafada Cedar Riverside ilaa 3 milyan la gelinaya midka ku yaala Matthews Park ku yaala xaafada Seward oo Franklin u dhow midka ku yaala PV Park oo shidka Franklin Chicago goyska intaas oo dhan lacag baa la gelinaa waxa kaloo 1 milyan oo dollar oo hadda lagu dhameystiri doono meel dabaasha lagu barto ama swimming pool oo aan halgan dheer ugu jiray 3 sano aan joognay aan markasta u doodi jirnay oo Minneapolis Swims hay'adda ay maamusho 1 milyan oo dollar waa gelinay sida meesha soo socday waxaan lagu sameeyay doonaa Phillips Community Center oo sida la socotid ku dhagan moolka 24 swimming pool kaasna waxa loogu talagalay in dadka xaafadda ay isticmaalaan laakiin gaar ahaan waqti la siiyo gabdhaha muslimiinta ah in ayaguna dabaasha lagu baro ayagoo diintoodii aan ka maaragtay maxay rag ay meesha joogaan dumar kaliya joogaan lagu bari karo taas laftigeena waa horumar waana ballanqaadyadii aan sameynay iyo codsigii nooga yimid dhalinyaradeen iyo gabdhaheen iyo maamooyinkeen oo ma haysana meelaha ku dabaalano meelaan anakoo asturan aan dabaala karno meel kastaba waa rag iyo dumar isku dhex jiro marka hadda maalinkooda loo goynayaa gooni ahaan sidee dumarku u helayaan maalina loo goynaya maalmaha loo goynaya waqti badan baa la siinaya waa iyaga dabaasho lagu baraxta sida loo dabaasho oo maartay tagi karaan oo nafsa karaan waa diyaar garoobi karaan hadday ku dhacaan riverkan waa yaqaan sida loo dabaasho gartay Abdu hadday xasuustayda xasan tahay sidoo kale waxaad xoog saaraysay dhinaca shaqada iyo shaqaaleynta dhinacaas shaqada iyo shaqaaleynta marka doorashada ku jirto xoog aad saaraysay ayada ka waran maxaa la isdhihi karaa leeyahay waxba ka hirgalay ani waxaa xasuustaa markaan xafiiska soo galay Maxamuudo waxaan iclaaminay waxyaalaha ugu badan dhibta ugu badan oo hayso Soomaali ahaan East African ahaan degmada lixaad ahaan maxay tahay dhibta weyn waxa weeye degmadeen waxa la waa degmo la dhihi karo working class way oo dad waxa degan oo aqalka hoose ah ama shaqooyin dad gacmooda ku shaqeysto taksiilayaal xoogsato marka waxaan rabnay inaan helno fursado u helno dadkeena in horta la ogaado dadkaas inay jiraan ay magaalada degan yihiin so meel kasta waxa la tagna codsi iyo albaab kasta waa garacna ama ha noqoto county-ga ama ha noqoto state-ka ama ha noqoto maxaa la dhahay hay'adaha faraha badan oo loogu talagalay dadka inay caawiyaan waxaana ka soo baxday inay jirto baahi dhinaca markii la fiiriyo shaqa la'aanta ama waxa la dhaho unemployment-ka waxaan ogaanay unemployment-ka gobolkeena Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis inay tahay 3% ama 3 ama 4% boqolkiiba 3 ama boqolkiiba 4 dadka cadaanka ah shaqa la'aan bay yihiin gobolkeena yani boqolkiiba 96 iyo boqolkiiba 97 shaqay haystaan marka waa inaad waalan tahay ama shaqa aad rabinba ama xanuun kale ku hayo inaad shaqo weysid adoo qof cadaan ah magaalada Minneapolis dhinaca dadkeena markaa fiirisid waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 17 ilaa boqolkiiba 22 marka taas waxay keentay dhibaato oo ah magaalada waa degannahay shaqooyin badan baa jirto kamiliyaasha shaqay raadinayaan dadkii laakiin shaqadii ma heli karaan waayo diyaar maysa ahayn marka dhinaca markii la dhaho shaqaynta waxaan fiirinay waxaa jira programyo oo waxaa sameeyay job fair wax la dhaho oo magaalada lagu sameeyay loogu talagalay East Africaanka Soomaaliyeed bandhiga shaqooyinka waxaan sameeynay maxay dhalinyarada after school program jiro waxa la dhaho step up program jiro step up programka 20 ilaa 30 Soomaaliya gali jirtay hadda boqolkiiba 40 bay yihiin sanadkan soo dhaafay so because waa ilaaminay masaajidada marka tagno waa ka hadalnay maama kasta markaan arko sida Riverside waa weydiiya cunugaaga meeqa jir buu yahay eedo maxaa gabadhaada meeqa jirtaa hadday intaas jirto programkaas jiro qaar waa la buuxinay foomka tusaale ma jira cunug ama gabar ka soo shaqeysay oo lacagtii wax ku qabatay kuwa badan waxaa jiro wiil yar oo anigu aan arkay waxa hooyadiis waxay u furtay akoonkii ugu horeysay waxay ka furtay dhinacan maxaa la bangiga ku yaala xaafadda markaas wuxuu yiri hooyo $100 ugu horeeya abti u dir oo Soomaaliya joogo maamadana way la yaabtay waxay tiri wow waxay aragtay faa'iidada shaqada ay leedahay mid waxaan ognahay dhalinyarada haddii shaqo la geeyo hadday shaqeeyaan markii 14 sano jiraan 15 sano jiraan 16 sano jiraan way adag tahay inay xabsi galaan
waxa waa qofkii gacantooda dhimay la jacayl baa galayso way xisaabtamayaan waxay ogyihiin adduunkii inay wax gada karaan inay awood leeyihiin marka shaqaaleynta waa very important laakiin taasoo dhan waxa ugu muhiimsan markaan aragnay baahidaas oo albaabkaas aan garaacnay waxaan go'aansanay inaan xarun furno waxaa jirto maxamuud 23 iskuul oo dhinaca farsamo yaqaanada dadka lagu tababaro oo ku yaalo Twin Cities-ka ugu badnaantood waan tagay dhinaca nimanka la dhaho plumberka oo pipeyada sameeyo musqulaha iyo nimankan electricianka loo korontada farsamo yaqaanka ah kuwa laxanka sameeyo welderka la dhaho alxanka marka meelo badan baa tagnay markaan aragnay waxaan su'aasha ugu horeysa weydiiyay waxa weeye oo dad ma qaadatiin ha waa qaadanaa meeqa East Africana qaadateen waxay ku dhahan ma haysano ma qaadan ma naqaan saa ula hadalno xarun ma haystaan waa ka soo baxdo marka maxaa sameynay waxaan ku dadaalnay inaan xarun furno oo aan u bixinay the opportunity center waa la socota waa joogtay maalintii dhagax dhigeeda ama waa joogeen bahdiina saxaafadda dhagax dhigta waxaan aruurinay 1 milyan ku dhawaad $1 milyan oo aan albaab kasta u garaacnay oo aan u tagnay foundationada oo aan u tagnay maxay countiga oo meelo badan ka soo aruurinay lacagtaas magaalada laftigeed miisaaniyadda lacag ku darnay 3 sano isku xigto lacag lagu dar opportunity center 100,000 oo aan ugu talagalnay in la helo xaruntii ay nimanka ka hadli jireen markaan u tago oo okay xaruntaas waa sameynay haddana waa inaad timaadiin dadkana qaadatiin waxaana la qiyaasayaa in 3,000 ilaa 4,000 oo shaqaalo laga qaadan doono sanadka ugu horeysa meeshaas opportunity center waxaa laga furayaa xaafadda sida Riverside ormo marka furmaya wuxuu furmi doonaa insha Allah bisha soo socota February 2017 haddana waa dhagax dhigay shaqadii waa socotaa haddeertaan la hadlayaan ilaa 14 qof oo shaqaalaha ayay meesha qaadatay haddeertaan la hadlayaan kambaniyaal aad u fara badan baa diyaar u ah inay meesha yimaadaan dadka qaataan marka waa isbedel kale waxa weeye waa xaafadoodii waxaa ka shaqay doona dad ayaka u eg oo Soomaali iyo Oromo ah oo foomamkooda la buuxi doono oo imaan karaan oo bari doono sida tayga loo xirto ama interviewga sida loo galo ama shaqooyinkii waxay jiraan xataa waxaan sameynaynaa saxaafadiina waa ka soo qaybgali doontiin programka oo si joogto ah ayaa xarunta joogi doontiin oo u baahi doontiin shaqooyinkaas ka soo bixi doono si ayeeyo oo M building degan iyo adeer oo C building degan iyo odaga 2910 degan iyo kuwa Hiawatha degan sida u ogaadaan ay dhahan wariyaa meesha ka kac tareenka raac ama u lugay ama hoos u deg saa shaqo u heshay marka shaqooyin badan oo xirnaan jiray dad cadaan ah hada Soomaalidu ka faa'iidi doontaa hal wax baan rabaa ku daro taas waa point waxa sameeyay aad u fiican gobolkan dadka cadaanka ah oo degan magaalada Minneapolis iyo Hennepin County waxay noqon rabaan dad retirement way geli doonaan especially dadka police ko kale dabdamis ko kale nursing ko kale shaqooyinka farsamada oo dhan waa dadka retirement bay u geli rabaan waxa loo baahan dad bedelo gobolku wuxuu naadinayaa gobolada kale Mareykanka iyo adduunka wuxuu dad u baahanay noo yimaado annagana waxaan la galnay deal ah war dadkaas iska day kuwa fara badan oo dhalinyaro ah kumanaan ayaa magaaladan degan madow Somali Latino Native American dadka midabka madow 40% magaalada Minneapolis yihiin shaqo la'aantina dadka ugu badan way marka fursad qaali ah jirto dadkaas inay ka faa'iideysadaan taasna waxay ahayd waxyaalaha anaka aan codsiga ula tagnay war dadkii waa joogaan ma u baahnidina dad diyaarad soo saartiin waa joogaan Cedar ay joogaan Carmel bay joogaan 24 kay joogaan waxay joogaan xaafadaha South kay joogaan North Minneapolis ay joogaan dadkii waa joogaan hala si fursad wax lagu baran lahaa intii loo raadin lahaa Wisconsin iyo sidoo kale South ama North Dakota waa soo dhaweynayna kuwaas laakiin waxaan rabnaa la tartamno waxaan rabnaa cadaanka ka yimaado Wisconsin markuu inta yimaado in wiilka degan sida Riverside uu la tartami karo shaqada laftigiis interviewgu uu leeyahay chance uu ku helo kartay Abdi marka dhinacaas waa dhinacii dadkii ka faa'iideystay hawsha laakiin marka la fiirsho bulsho weynta kale ee magaalada nala degan sida Soomaalida badan ama taksiilaha ahaato ama si kala ahaatee wax qabadkaaga maxaa ka soo gaaray ayaga qoondadooda waxa sheekayra ku sheegaya intii aan xilkan la wareegin waxaan saacanay niman taksiilayaal anoo muwaadin ah waxaan u doodayay nimankaas taksiilayaasha in la arko waxaana loo diiday in council memberka aan u tagno oo ballan loo sameeyo sanadka bacdi xilka waa la wareegnay shaqadii ugu horeysay sharci ugu horeysay oo aan ansixinay wuxuu ahaa sharciga taksiilayaasha waxaa jirto waxyaalo badan oo aan ka bedelnay oo cabashooyin ka timid taksiilayaasha example ku siinaya waxaa jirtay taksiilayaashu baabuurtooda ma la ogoleen jidka magaalada inay dhigtaan parking ma dhiga karin oo waxay ahaayeen commercial vehicle ama waxay ahaayeen baabuur lagu ganacsado marka waa loo diidi jiray inay jidka dhigtaan taas waa ka qaadnay hadeer
commercial vehicle ganacsatada dhan jidka ma dhiga karaan oo aan ahayn taxi wada jidka caadiga waa dhiga karaan meterka caadiga waa dhiga karaan waagi hore ma loo ogoleen waxaa kaloo jirtay sharci ahaa in ay sanadkiiba 2 jeer baabuurka lagu sameeyo baaritaan inspection 2 jeer sanadkii lana qaato $250 oy sabay karaan kaliya maxay garaashka ay magaaladu leedahay ama magaalada Minneapolis garaashkeeda ama magaalada St Paul garaashkeeda garaashka kale ma jirto meel kale maxaa ka dhignay inspectionkii hal baa ka dhignay sanadka mar waxaan u ogolaanay inay u tagaan garaashka ninka Soomaaliga ay yaqaanaan ama derbaan Bobby iyo Steve inay u tagaan boqolkiiba $30 ku qaadanaysa inspectionkii oo dhan lacagna waa loo save gareeyay waqtina waa loo save gareeyay waqti lacag waxaa kaloo jira waxaa jira baabuurka 5 sanaba in la bedelo baabuur cusub soo gataan waan u dheereyn hadda 10 sanaba waa loo ogol yahay inay baabuurka soo hadda waa laba jibaar intii sano ay samay jireen lifetime-ka 5 to 10 waxyaalo kale fara badan jirto oo ka qaadnay parkinada meelaha ay dhigtaan iyo waa loo ogolaaday waan u sahlnay hatta hadda cod bay ku leeyihiin city hall markii sharci la keenayo oo saameyn ku leh taksiilayaasha waa hor istaagnaa ayaga la tashanaa markii wixii ay ku rabaanna waa u fulinaa waayo waxaan ognahay boqolaal dhalinyaro inay ka shaqeeyaan marka taksiilayaashii maxaad ka hesho tacliiq damba any comments oo maya waxaa ka rabnay kaliya inay shaqadooda si fiican u qabsadaan wax kale ma ahan extra anigu waa kamid ahay taksiilayaasha waayo waa dadkaygii waa dadkii ii codeeyey waana dadka aad iyo aad noo taageersan midda labaad haddaan ka hadlayno shaqo la'aanta hayso dadka marka ninka soo kacay oo lacag geliyay inuu baabuur gato baabuurkii buufiyo laysankii galo qofkaas in loo hiiliyo waaye waa nin dadaalaya qofka dadaalaya wax loogu daraa waxaa jira turjumaanada waxaa jira saa la socday sanadkii lasoo dhaafay sharci lagu soo saaray turjumaanada oo anigu aan u tegay capitalka caasimadda aan oola dooday maxay oo sharcigaasna laga qaaday gabdhaha waxaana rajaynaynaa in uu ilaahay ku soo celin waxaa kaloo jiro sharciyo kale oo lacag kale oo aan gelinay autism wala socota cudurka autism la dhaho waa markii ugu horeysay magaalada Minneapolis ay maalgeliso autism waayo autism waa cudurka ilmaha ku dhaco oo Soomaalida aad uga naxaan ilmaha yar yar 2 sano iyo bar 3 sano markii jana la ogaadaa marka dad badan waxaa jira Soomaaliya oo ilmahooda autistic yihiin oo weligood magaalada ay saacawin hadda waa la caawiyay lacag baa loogu diray cod bay leeyihiin waxaan rabnaa sanadada soo socda insha Allah haduu Ilaahay fursad na siiyo inaan magaalada Minneapolis ka dhigno magaalo autismka aad iyo aad loo caawiyo waalidiinta iyo ilmaha iyo iskuul fiican iyo meel fiican ay ku nool yihiin ay helaan waxa kaloo jirto dhinaca maxay ahayd bulshada maxaa la dhahaa dad waxaa jiro naafo badan baa leenahay dad badan oo disability qabo sanadkan hadda la soo dhaafay 2016 miisaaniyadeeda waxaan ku darnay lacag lagu taageerayo naafada Soomaaliyeed oo hay'adaha Soomaaliyeed lagu taageeri doono taas waxay ka turjumaysaa waana markii ugu horeeyay magaalada Minneapolis ay naafo ama disabled folks ay lacag geliso taasna dagaal dheer baan u galnay waxa la dhihi jiray war magaaladu waxaan ma samayso oo lacag ma gelino autism oo lacag ma gelino disability annaga u sheegay degmada lixaad autism waa problem weyn degmada lixaad waxaa leenahay dad badan oo naafa oo af Soomaaliya oo aan afkii aqoon oo aan dalkii aqoon oo haddana disability ku sii darsaday dadkaasna weligood ma laga hadlo wayna leeyihiin ururo oo isku yimaadaan way shiraan annaka way noo yimaadaan xafiiska waxaa mar noo timid 20 dhalinyaro oo nafa oo gabdho iyo rag iskugu jiray oo maxay soo galay oo nala shiray magaalada dhexdeeda oo naga codsaday na taageer hana ilaabin annaka waxyaalaha ay doonayaan in laga taageero waxaa weeye noloshooda inay fursad helaan in codkooda la maqlo in hay'adahooda la maalgeliyo siday ayaku u maamulaan ayaka og baahidooda waxay rabaan baahidooda inay soo bandhigaan laakiin hadda waxay aaminsan yihiin in aan la dhageysanba oo aan la tixgelin marka taas laftigeedna waxbaa ka qabanay waana ayakana waa ku mahadsan yihiin taageerada inuu muujiyo gartay mahadsanid cabdo dhinaca marka la fiirsho dhaqanka iyo diintaba waxaa tahay qofkii ugu horeeyay oo muslim ah oo loo doorto xil noocaana qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah qofkii ugu horeeyay oo Afrikaan aan dhihi lahaa marka waxyaalahaas oo dhan marka la fiiriyo waxaad tahay tusaale waxaadna horseeday wax hore aan u jirin dabcan maxaa lagaa dhaxli karaa oo lagaa baran karaa oo kamida
waxyaabaha laga dhaxli karo dadka dambe ee xilalka u soo tartami doono ayaga laftirkooda ka faa'iidi doonaan horta fiili anigu 7 jir baan ahaa markaan ingiriiska u buurnay waxaan ku koray dal reer galbeed ah laakiin waxa lagu soo barbaariyay hooyaday igu soo korisay in aan ahay qof Soomaaliya Soomaalinimaduna wax muhiim ah tahay in aan ahay nin madow Afrikaana Afrikaanimaduna wax aan laga faanin tahay iyo in aan ahay ugu muhiimsan qof Muslim ah oo diinta islaamku inay wax weyn tahay marka waa lagu soo barbaariyay anoo yar in muslimnimada Soomaalinimada Afrikaanimada ay wax fiican tahay marka anigu hadda aan imid xilkaanne waxa dhici karto waxaan ogeyn in dadka nala shaqeeyo gudoomiyaasha magaalada duqa magaalada maxaa la dhahaa shaqaalaha magaalada 6,000 qof oo shaqaalaha magaalada duqa booliiska qofka xukumo dabdamiska qofka xukumo dadkaas oo inay weligood qof muslina ay la shaqeeyaan qof Soomaaliya ay la shaqeeyaan inay arkaan Soomaalida laakiin weligood ay la shaqeeyaan ay qof Soomaali oo la siman inay arkin dhinaca awoodda markaad joogtid meesha waxa ku kaftama waxa timahayga cadeeyay oo gray hairka siiyay inay tahay mas'uuliyadaas extra oo ku saaran oo ah inaad safiir u tahay dadkaaga inaad dadkaaga aad xambaarsan tahay wanaagooda maxaa la dhahaa hope-kooda maxay ahayd iyo waxyaalaha ay rabaan noqdaan inaad markasta matashaa oo aad tustaa dadkaaga waxay yihiin inaad aqoontii aad leedahay dadaalkii aad leedahay kartidii aad leedahay aad ka cararin madownimadaada Afrikaanimadaada iyo waxa ka muhiimsanba islaamnimadaada wala socota markii la dhaariyay hidiye dhaqan baa gashtay koofi iyo shaal oo ah hidda muslim ah koofida iyo shaalku waa wax Soomaali ay sameeyaan laakiin waxay ka timid muslimnimada iyo turjumaanka qofku markuu mas'uul yahay koofi buu xirtaa qofku markuu isim yahay koofi buu xirtaa marka taasna waxa tusaynay in dhaqankeenu dharkeenu uu fiican yahay laakiin islaamnimadu ay fiican tahay hadda website-kayga gashay ama profile ka afir waxa ku qoran Abdi Warsame is a practicing Muslim not Abdi Warsame is a Muslim he's a practicing Muslim Abdi Warsame waa qof muslina oo ku dhaqmo islaamnimada salaadiisa tukado ku faano diintiisa masaajidka laga yaqaano dadkiisa ku dhex jiro familkiisa si islaamnimo ku dhaqdo marka taasna wax lagu faano because waxa aaminsanahay islaamnimadu inay la siman tahay ma ahan inay ka fiican tahay diimaha kale because waa diinta aniga aan leeyahay waana midda maxay anigu waa ku dhaqmo marka taas way waxa aan keeno in maartay dadka nala shaqeeyay arkaan in qofku asagoo aan ka cararin diintiisi asagoo aan sarrifan diintiisi asagoo aan u arkin diintiisi inay tahay wax disadvantage u keento ama wuxuu ka faano ama ka dhuunto waqtigan dad wala socota xaaladda ku jirno gartay Abdi laakiin waqtigan xaaladda aad ku jirto aad ka shanqarisay hadda laftirkeeda ka hor iyo kadib Donald Trump la doortay ninkan maalqabeenka mayalka adiga hadda madaxweynimada loo doortay waxaa jiray hatta wargeysyada Ingiriiska ku soo baxo luqadda Ingiriiska ee ka soo baxo magaalada iyo daafaheedaba waxyaalo badan waxa ku qornaa caynkaana oo ah in adiga ahaan shakhsiyan muslimnimadaada iyo islaamnimadaada inaad tahay kalimaha balse inaad ku adagtood haysato diintaada kuna faanayso inay kaa soo gaareen waxyaabo badan waxyaabahaas kaa soo gaaray dabcan diinta islaamka Mareykan markii la joogo lama jecla waana ogtahay waxyaalaha media iyo say uga hadlaan marka waxyaabahaas kaa soo gaaray cagajkulinta noocaas ah in lagu xumaynayo inaan rabin mar dambe inaan kursiga ku sii fadhinin maadaama aad muslim tahay daraadeed waxyaalahaas ku soo gaaray seed oo la falgashay oo la tacaamushay waxa arkaysaa waxa horta culays aad iyo aad u badan baa nala saaray marka xilkan la wareegay weerar baan la ku qaaday aflagaado ay Abdi Warsame waa nin saasa waa nin xun dumarku u xun yahay because waxay aaminsan yihiin Soomaalida inay dumarkooda dilaan waxa way muslimiintu dumarkooda ciqaabaan Abdi Warsame wuxuu necib yahay dadka saasa Abdi Warsame waxa weeye waa isla weyn yahay waxyaalo badan email noo soo diri jireen oo threats ah oo ku dhihi jireen maxaa saas ka wada maxaa Somali Street u magacooday maxaa Oromo Street u magacooday maxaa islaamka u muujinaysa ma ogi meesha joogtid marka waxyaalo badan culays aan saari jiray culays siyaasadeysan way oo dhinac kasta ka imaanayso kuwa kula degan kuwa dariska kula ah kuwa gobolka kala degan kuwa Twitterkaaga Facebooka kugu soo weerarayo marka taasna waxay ka turjumaysaa de qofku hadaa anigu sarrifa lahaa diinteyda ama ka carari lahaa waxa la arkaa in caadi ah laakiin marka mujtamac dhan matashid oo aad ka cararin diintaadi dan culays way because wax cusub waxa la arkay ma ahan qof afkiisi ku hadlay saad maanta kugu la hadlayo oo masaajidkiisa aadayo
oo xataa soo bandhigay shirar laga hadlayo waxa la dhaho islamophobia waa nacaybka islaamka shirar baan ku qabanay kaniisado ka baxsan degmada lixaad siday u bartaan mujtamaca la deganahay islaam wuxuu yahay oo imaamyaa u yeernay oo mutacalimiin baan u yeernay waa su'aalo naga qaateen waan u bandhigno in anagu nahay dad diin leh diin xambaarsan jacayl diin ku farayso wanaag diin ku dhahayso dembiga iska ilaali khamraha cabin xashiisha cabin sigaara cabin maxay ahayd xaaskaaga ilmahaaga si fiican u korso xuquuqda waalidka kugu leeyahay fuli xuquuqda dariska kugu leeyahay ka warqab maxay ahayd deyntaada bixi waxaas waa taqaanaa markii qof aan duugayno waxaa la dhahaa yaa deyn ku lahaa diintaas dadka leh inay gambadaan ma ahan inay ka cararaan ma waa inay u soo bandhigaan mujtamaca ay tusaan wanaagga aan leenahay wanaaggeena oo ka timaado islaamnimadeena marka of course waa jira culayskaas waa markasna waana la saaraa Abdi Warsame laakiin adoo saas muslimiintii uu matalayo oo culayskaas gaala kaaga imaanayaan ba haddana waxaa jira culaysyo kale oo ka soo yeeraya dad muslimiina laakiin Soomaali aan ahayn culaysyadaas ma ku soo gaaraan sama ka warqabta waana soo gaaraan waxaana soo gaarto waxaa la socotaa anaga hadda waxaa jiro moolka 24 oo kale moolka 24 waa mool weyn oo ganacsato ah oo Soomaali badan ku jirto oo kumanaan qof ay yimaadaan meheradaasna nin carab ahaa leh moolka waxaa jirta culays nooga imaanayo oo la dhahayo Abdi Warsame wallahi qalad uu sameeyay Abdi Warsame saan uu sameeyay maxay taa qaladka sameeyay waxaan codsaday in moolkaas musqulo loo sameeyo gabdhaheena in musqulo loo sameeyo rageena moolkaas oo dadka tirada badan ay yimaadaan oo mujtamacaas ay yimaadaan ayaa waxaan jirin musqul fiican oo la isticmaali karo waxa arkaysa nin 3,000 $2,000 bixiyo kiro oo maxay biyo ku soo daadanayaan oo aan la tixgelinayn markaan ka codsanay intaas hadana waa la sameeyay waxyaalo badan waxa jirto kale parkingka moolka hortiisa yaalo waagi hore waxa xasuusta sidoo uu ka jiray parking maanta waa la dayactiray musqulaha waa ogay sidoo uu ka jirtay maanta waa la sameeyay waxaana marxaati ka ah dadka moolka 24ka yimaado iyo dadka degan dagaal aan u galnay waxaan niri dadkeenu waxay istaahilaan kira bixiyaashu waxay istaahilaan in ay helaan sida moolka America sida moolka Southdale sida jidadka sida Riverside ay u noqdeen jidad Mareykan moolashan waa inay u noqdaan moolal muhiim ah marka parkingkan waxa laga qabtay maxay dadka dariska meesha degan iyo dadka anaga waxaan u tixgelinay dadka degan xaafadda iyo dadka yimaado moolka marka waa jirtaa culayskaas laakiin culayska anagu wax weyn ay ugu leedahay ma leh because waxa adigu mas'uuliyad ku saaran waxa weeye in dadka sharaftooda ay ilaalisid marka xilkaan kale leedahana waa in dadka u doodaa qofka naafada waa in u doodaa ninka naafada oo imaanaya 24 oo aan haysan access uu ku soo galo waa in u doodaa odaga waayeelka oo sokorta qabo oo rabo inuu moolka u yimaado oo shaah gadanayo oo qada gadanayo oo aan haysan mas'uul u aado oo inuu iyo gabadha moolka maxay ahayd ka adeegto oo ka shaqaysato inay dariska u tagto albaabku ganacsiga musqushu isticmaasho waxyaalahaas wax loo dulqaadan kara maaha waana culayska ay saari jireen fiiri magaalada Minneapolis isbedel weyn baa jiro isbedelkuna dadku ma jeclo soo dhici kartaa nimankan walaalaheena muslimiinta ah oo ganacsatada carabta ah inay u arkaan culays cusub dad la xisaabtami karo mas'uuliyiin dadkii ay waagi hore farta ku fiiqi jireen ayaa hadda ayaga wax u yeerinayo taas waa culays wax cusub ma ogolo dadka kale mujtamaca kalena waxa arki kartaa inay dhahan muslim xil hayo oo doodayo oo dadkiisi kamid ah waa wax cusub laakiin way bara doonaan wana la qabsan doonaan insha Allah طبعا dhaqan carbeed oo Soomaaliya sidan iska jira meesha ku jira Abdi sida aad ogtahayba doorashadii baa soo foole bishan November sanadkan lagu jiro 8 bilood ku dhow maxaa ku qorshaysan adiga maadaama aad xilkaan wax badan soo haysay arrintan aad fahantay shaqadii hadda si fiican u hayso waxyaabo badan ay qabyo ku yihiin haaf ku marayaan maxaa ku qorshaysan horta waa mahadsantahay Maxamuud shirka waxa lagu jiraa waa sanadkii doorashada waxaan anaka noo qorshaysanaa doorasho xalaal galno doorasho aan u soo bandhigayno shacab weynaheena degan degmada lixaad ama ha noqdaan cadaan ama ha noqdaan dadka ku hadla af Oromo ama ha noqdaan dadka Soomaaliga ku hadlo inaan u soo bandhigayno waxay aan qabanay kana codsanayno kana baryayno taageeridooda rabnana siday noo taageereen waagi hore sharafta ina siiyaan inay mar labaad la siiyaan annagoo maanta way aragnimo badan
helno oo rabno wax badan inaan hirgelino waxa kaloo jirto oo rabana meesha ka ilaamiyo shacabkan u sheego sanadka 2017 Abdi Warsame kaliya ma tartamayo degmada lixaad kaliyana tartan kama jirto waxa jirto degmada sagaalaad oo dariskeena ah oo Lake Street waa taqaanaa maxay degmadaas waxa ka tartamaya nin dhalinyaro Soomaali oo firfircoon aqoon-yahan oo la Maxamed Faarax waxaan anigu ka rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed iyo Oromada iyo cadaanka qof kasto ay dhageysanaya maanta in Maxamed Faarax ay u taageeraan sida ay taageereen in Maxamed Faarax la siiyo fursadii aniga la siiyay waayo markii aan helno degmada sagaalaad iyo degmada lixaad codkeenu waa laba jibaar buu noqonayaa codkeenu Abdi Warsame kaliya ma noqonayo waxay noqonaysaa laba qof oo golaha deegaanka ka tirsan oo Soomaali ah wiligeedna ma dhicin taariikhda magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesota laba qof oo madow ah oo isku mar xil qabtay maxaa la golaha deegaanada wiligeed ma dhicin marka maanta waxa jirto inaan bedelnaan rabnaa waxaan rabnaa midaan haysano inaan mid ku darsano waxaan rabnaa inaan dadkeena kira bixiyaasha ay noqdaan dad guryo leh dhalinyaradana shaqo helaan taasna marka laba cod haysano awoodina waa ka sii badnaanaysaa anaguna way aragnimada aan qabnana waa la qaybsan doonaa Maxamed Faarax waana ognahay kalsoonida ku qabnaa Maxamed inuu ka soo bixi doono hawshaas waxa kaloo jiro nin kale oo dhalinyaro ah oo la dhaho Abdi Gurxan Maxamed magacaasna baro Abdi Gurxan Maxamed oo hadda u tartamayo Park and Recreation Board waa nin ganacsata da'yar asagoo nin yara business fiican samaystay ilaa 40 qof ay u shaqeyso ninkaas oo dhalinyarada oo sidar degan asna wuxuu u tartamaya xil muhiim ah xil 120 milyan oo dollar budget leh xil shaqo badan dadka dhalinyarada siiso xil aan u baahanahay inuu qof anaka kamid ah uu meesha joogo marka labadaas nin dhalinyaro magacyada xasuusta oo magacyo easy ah waa Abdi kale iyo Maxamed Faarax labadaas rag waa in la taageera codsigaasna anigu waan soo gudbinayaa waxa rabaa ku dhameeyo horta Soomaalida aniga si fiican bay sharfeen si maarta wanaagsan bay taageereen wax badan bay galiyeen xil waxay saareen aad u muhiim oo culays badan laakiin muhiim ah waxaan aaminsanahay aniga in xilkaas aan ka soo baxnay waxaan aaminsanahay in wixii nala ka filayay in wax ka badan aan qabanay laakiin hamigeenu aad u weyn yahay anagu waxaan u baahanahay hadaan nahay community East Africanka inaan helno mall aan anagu iska leenahay mall aysa dad kale nala lahayn oo anagu aan leenahay taasna waxaan rabnaa sanadka termka soo socdo insha Allah dad Ilaahayna gaarsiyo waxay noogu tahay waxyaalaha ugu waaweyn oo aan rabnaa sameeyno waxa kale jirta program badan oo aan rabnaa sameeyno waxaan rabnaa magaaladan inaan ballaarino shaqaaleynta iyo shaqo abuurista waxaan rabnaa askar badan oo Soomaaliya waxaan rabnaa dabdamis Soomaaliya waxaan rabnaa Soomaali badan oo dhinac kasta magaalada ka shaqeyso county-ga ka shaqeyso si sharaf leh magaalada u nool laakiin waqtigan waa waqti aad u adag waa sida tii madaxweyne waxaan haysanaa oo anaka fikradeena aan haysan waan asal laftigiisa aan u dirayna fariin ah inaan nahay dadkiisii inaan nahay muwaadiniintiisii inuu yahay madaxweynaheeni laakiin waxaan u baahanahay inaan dadaalno kuna dadaalno midnimadeena mana aha midnimada Soomaali kaliya waa midnimada East Africanka waa midnimada muslimiinta ogaada Soomaalida gobolkan ayaka muslimiinta custodian waa muslimiinta gobolka Minnesota waa Soomaali مسؤولينta East Africanka gobolka Soomaali maxaa Minnesota waa Soomaali way mujtamaca ugu badan ay mas'uuliyad saaran tahay marka waa in aan kula nimaadna midnimo tafaraaruq ina ka cararno kala qaybinta ina ka cararno waxyaalaha yaryaro dalkeeni Soomaaliya ku soo baabi'inay inaan ka cararno haddana bilow fiican baa leenahay oo midnimadii aan muujinay 2013 haddaan muujinay 2017 waxaan idin ballan qaadaynaa inta hadda aan gaarnay insha Allah in ka badan aan gaari doono marka waxa la waqti sameeyay xabiillah jamiican mahadsanid Abdi Warsame okay alhamdulillah daawadayaal intaasi waxa inoogu eeg barnaamijkeeni wacyi oo inuu maanta ku eegeynay Abdi Warsame iyo waxqabadkiisii 3 sano oo soo hayay xilka sidoo kalena aynu ku eegeynay oo ku iclaamiyay inuu doorashada labaad u soo istaagayo isaga oo mar labaad sharxi doono inta barnaamijkan oo kala ah wada inuu ku kulmayno aniga iyo saaxiibkay Isma Musa waxaynu idinkaga tageynaa sidaas iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh